waxaan sidaa u leenahay qofka bani aadamkaahi mahmaa uu noolaado waa kii maalin lagu qaada naxashka waa kii mawdka dhadhamiya saasuna ilaahay u leeyahay kullu nafsin daa'iqatu lmawt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور waxaad moodaa marka inaanan ogolayn in la xasuusiyo dhimashada oo aan adduunyada jecelnahay marka naftaas loo yeerayaa laba unbay midkood noqon qof kastoo annaga naga midana waa kii mawdka u soo socda wey waxaad moodaa marka laga hadlayaa aakhiro dadku inay aakhiro soo dhaafeen baad moodaa mararka qaarkood oo waxa laga hadlayaba ay soo gudbeen laakiin xaqiiqdu waa inaanay soo gudbin wey haddii ruuxdu marka ay tahay ruux wanaagsan oo ilaahay rumaysay oo camal saalixa ku dhaqaaqday oo amarkii ilaahay ku dirantay oo rasuulkii ajiibtay oo jirkii aanan xaaraan cuninin ilaahayna uu ateecay subxaanahu wa tacaala waxay ku odhanaysaa malaggaas wuxuu ku odhan ukhrijii ayatuha annafsu almutma'inna aayaddii qur'aan fii suurati alfajr yaa ayatuha annafsu almutma'inna irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii waadkhulii jannatii kolka sidaasuu ilaahay ku odhanaya subxaanahu wa tacaala malagga wuxuu odhanayaa ukhrujii soo bax ayatuha annafsu alطayiba kaanat fi ljasadi alطayib naftii wanaagsanayd ee jidhka wanaagsanayd ku jirtay jidhkii aan xaaraanta cunin ukhrujii xamiidatan wabshirii birawxin warayxaanin warabbin hayri qadbaan soo bax adigoo mahadsan ku bishaarayso rawxun warayxaan farawxun warayxaanun wajannatu naciim buu yidhi ilaahay fii suurati alwaaqica farawxun warayxaanun wajannatu naciim u soo bax ilaahay raalli ahaanshihiisa u soo bax ilaahay ridihiisa u soo bax ilaahay jannadiisa u soo bax ilaahay citrigiisa u soo bax baa la odhan naftii طayibkaaheed ee wanaagsanayd ee ilaahay ajiibtay subxaanahu wa tacaala ee qur'aanka ilaahay ku joogsatay xadkiisa ee rasuulka amarkiisa raacday wuxuu ka reebana ka hartay markaasay u soo bixi naftii fatakhruju min badanihi kamaa takhruju alqatratu min fi saqa way soo baxaysaa naftii sidii dhibic biyaahee ka soo dhacday weel la foorariye ka soo dhacday bay ka soo dhici والناشطات نشطا في سورة النازعات سيدي الدفتين لفريبي أصابحي وجمع أنشوطة والناشطات نشطا بأرواح المسلمين نفتي مؤمنة داهيد إلهي رالي جلسي سيدي الدفتين لفريبي وإلهي جسدك وسوسي يا سبحانه وتعالى عداد كن نقون ميسو كدقي ميسي جركي marka sida biyuhu uga soo dhibcaan weelka afkiisa ay uga soo dhibcaysa hadduu marka soo qaado malaggii oo naftii uu ka soo siiba jasadkii rusushii u fadhiday ishu meeshay ka aragta wax ilbiriqsi u dhaafi maayaan gacantiisii ayagoo haysta udug iyo kafan ayagoo haysta iyo dhaqitaan jannada ay ka soo qaadeen iyagoo sita ayagoo kafan sita iyo xanuud min aljanna ayay u soo baxayaan
taasoo ka udug badan ka adyabi nafxati miskin wujidat calaa wajhi اlardi buu yidhi nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii oo wariyey imaam axmed fii sunanih wa abu daawuud fii sunanih ثuma yuscadu biha lilcardi اlأwal calى asraci اlxaasibiin maxaan la kulmi doonaa ilaahay baa oga subxaanahu wa tacaala nafteenna maxaa loo gelbin doonaa ilaaha og subxaanahu wa tacaala way la cararayaanoo markiiba ilaahay baa loo bandhigayaa qofkaan aad u jeedaan naftu ka baxayso naftiisa kor baa lala aadayaa malaa'igtaa waa qaadayaan oo cirkay ula fuulayaan samaday la aadayaan markii lala aado fayantahi bihi ila asamaa'i اddunyaa fayustaadanu lahaa samadii koray ula fuulayaanoo idan bay ilaahay u weydiin in samada loo furo waa loo furayaa markaa abwaabu الsamaa waxaana ku tukanaya oo u ducaynaya markaasi malaa'igtii samadaa ku sugnay sama walba waa buuxdaa oo malaa'ig bay ka buuxdaa kolkay ku tukadaanay sii sagoontinayaan haddana mar kaleetoo samadii ku xigtay u sagoontinayaan malaa'igtaasi sidaasaa lagu samaynayaa ilaa ay samada rabbi ku sugan yahay ay tagto naftii fatuxayii rabbahaa subxaanahu wa tacaala bitaxiyati rububiya buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay bay salaamaysaa salaamtii rabbinimo iyo ilaahay ku salaamaysaa naftii mu'minadda ahay maxay odhanaysaa allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta nafteenu ma odhan doontaa sidaa mase way khilaafi doontaa ma naqaan ma loo furi doonaa mase waa laga celi doonaa ma naqaan ilaahay baa og ina loo furi doona ina la ka celi doona ayuha alikhwa ilaahay bay ku salaami salaamtiisii xaqa ahayd allahuma anta asalaam wa minka asalaam wtabaarakta ya da aljalaali waalikraam waa ducadaas aanu ilaahay ku ducaysanno oo ilaahay aynu ku salaamno bacda asalaa bacda kulli salaatin annagoo rajaynayna inuu ilaahay salaadeenna samada u furo camalkeenna ilaahay samada ku aqbalo subxaanahu wa tacaala allahuma anta asalaam wa minka asalaam ilaahu adigaa salaam ah magaciisa rabbi bay ka mid tahay wa minka asalaam nabadgelyadu xaggaaga ka ahaatay tabaarakta ya da aljalaal ilaahu wax walba waa ka hofnaato waa ka dahirnaatay adigaa cadamo u saaxiibaya karab fain shaaa allahu adina lahaa bisujuud haddii ilaahay ou doono sujuud buu ilaahay u idnayaa naftaasi waxaa u soo baxaya markaa jannada kaarkeedii baa u soo baxaya oo la odhanayaa ku qora jannada ku qora daftarkeeda ku qora an nasiib badanaa ilaahay ninkuu jannada ku qoray ilaahow jannada nagu qorabigayo ilaahow fii cilliyiin nagu qorabigayo is'alu allaha alfirdows alaclaa buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam qofku inuu ilaahay jannada weydiisto weeye daa'ima inuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay magaciisa ku qorin jaxiimka ya allah ya raba aljalaali waalikraam
إلهي مركا وحورنا يا سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين كقرأ أدون كي كتاب كيس عليين كقرأ وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب كملائكة سو حاضران ثم أعيدوه إلى الأرض أرض ذلك كعلية مرهد المقعس كقرتين جنة كقرت